dawacadii waxay la dhaqaaqday harimacadii labadooduba iyagoo u socda dhanka libaaxa ayay si lama filaan ah mar kale u arkeen isla xayawaankii argagaxa lahaa oo hortooda maraya wuxuu ahaa bahal ilka waaweyn leh indho guduudan kana muuqato cabsi gelin dawacadii iyo harimacadii aad bay u baqeen waxayna si dhumaalaysi ah ku gaadheen libaaxa libaaxii ayaa dawacadii ku yidhi keynteena waxaa soo galay xayawaan aad u khatar badan waa in aynu helnaa xeelad lagu qabto dawacadii ayaa ku jawaabtay boqorow amar in la sameeyo qafis bir ah oo aad u weyn gudihiisana lagu xiro ari la qalo oo urkoodu soo jiidanayo aniguna waan u tegayaa hadal macaan ayaan ku sasabi doonaa si aan halkan ugu soo kaxeeyo markaas ayay dawacadii u dhaqaaqday dhankii bahalka markay gaadhay waxay ku tidhi si khiyaano leh maharaj adiga ayaad boqorkayga tahay i qaado aniga oo kula jooga maalin walbana xoolo ayaan ku keeni doonaa kadibna waxay sii raacisay maharaj kaalay ila soco ari cusub oo ku diyaarsan ayaan meel ku hayaa haddii aad ila timaado aad baan ugu farxi doonaa bahalkii isagoo aan waxba ka shakin ayuu la dhaqaaqay dawacadii maadaama uu hunguri ka hayay hilibka cusub ee loo ballan qaaday markii ay gaadheen qafiskii birta ahaa ayay dawacadii ku tidhi eeg maharaj halkan ayaa ari cusub oo ku diyaarsan ku jira bahalkii markuu arkay arigii qafiska ku jiray hunguri iyo degdeg ayuu la galay gudaha si uu u cuno isla markiiba dawacadii waxay si dhaqso leh uga xirtay albaabka qafiska gadaashiisa bahalkii markuu garwaaqsaday inuu ku dhacay dabin wuu xanaaqay balse waa uu daahay libaaxii ayaa markaas yidhi hadda waxaad ku jiri doontaa halkan ilaa aad ka dhammaato gaajo iyo haraadna ku haystaan sidaas ayay dawacadii caqligeeda iyo xeeladeeda ku badbaadisay keynta oo dhan khatar weyn xayawaankii kale oo dhan way ku farxeen badbaadada waxayna ku ammaaneen dawacadii garashadeeda iyo geesinimadeeda saaxiibayaal sheekooyinkan oo kale ee xiisaha leh la soco mar walba